wuxuu ahaa wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahan waxa ay joogeen dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaana ay la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Imaaraadka. booqashada Dr. Gaas ayaa waxay ku soo beegantay waqti uu xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo isu taga Imaaraadka Carabta aanu lagu sifayn karin xiriir diiran. haddaba teleefonka Abu Dhabi ayaan ku waraystay madaxweyne Cabdiweli Gaas oo aan marka hore weydiiyey booqashadiisa ciddii ay kulmeen iyo wixii ay ka wada hadleen. wada maasan tahay intaan joogay Imaaraadka waxa weeye waxaan la kulannay madaxda dalka qaar ka mid ah waxaan ka hadlaynaa dabcan waxa weeye arrimo u gaara Puntland iyo arrimaha Soomaaliyaba laftigeeda wixii fikro iska dhaafsan karo insha Allah guul baan ku soo dhamaadeen khayr baan rajaynayaa badan. marka bal kulamadiinii maxaa ka soo baxay oo aadna la wadaagi kartaa? arrin waxay arrin si gaar ah anaga Puntland noo khusaysa ama ha noqoto xagga arrimaha nabadgelyada iyo ciidamada iyo taageerada ay siin jireen ama ha noqoto arrimaha ganacsiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maalgashiga dekedaha iyo horumarin kale oo dhanka la xiriirta arrimaha ijtimaaciga waxbarashada caafimaadka biyaha maadaama anagu hadda waxaan ku matalaya magacii Puntland ku matalayay imaaraadka halkan wixii talo iyo fikro nala ka weydiiyay Soomaaliya iyo xiriirka imaaraadka dabcan wixii fikriyan anigu madaxweyne ahaan aan ka jeesan karo oo gaar ahaan isu dhawaanshaha labada dal wax danoo hadda ku jira Imaaraad iyo Soomaaliya inay kala fogaadaan ma jirto marka anigu madax Soomaaliyeed ahaan xilba iga saaray isu dhawaanshaha labada dal inaan ka shaqeeyo iyo wanaag. dabcan Imaaraadka iyo Soomaaliya dawladda federaalka xiisad ayaa u dhaxaysa shirkaaga jiraa'idna waxaad ku sheegtay in Puntland dastuurkeeda qodobo kamid ay qeexayaan in heshiisyo caalami ah oo dalal iyo shirkadaba ay la geli karaan. taas ma isleedahay marka federaalkii adiga waa iska horkeeni kartaa? ما saas ma dawladda federaalka laftigeedu u malaynayo in heshiisyada la xiriira dhanka horumarinta dhaqaalaha arrimaha ciidamada iyo militariga iyo oo dawladda federaalka ayadu ay shaqadeeda tahay ma aha waxaan ka hadlaynaa saliid military waxaan ka hadlaynaa ma aha reer military waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waa company maalgashanaya dhul Soomaaliyeed sida xamarba ay Turkidu dekada xamar u joogto airportka xiliyada xamar ay u manage garayso marka maxaa diiday in dekada boosaaso Imaaraadku ay maalgeliyaan oo ballaariyaan madaxda Soomaaliduna anigu saan ogahay kama soo horjeedaan maalgashiga dalka in la maalgeliyo shaqo abuuris bay keenaysaa horumar bay keenaysaa dhaqaalaha kobcay keenaysaa marka cid kasta oo fududeyn kartaa way fiicanta in la fududeeyaan la shideynin. laakiin dhinaca sharciga marka la fiiriyo bal in dawladdii dhexe looga dambeeyo ayay dadka qaar qabaan arrintaasi inkastoo dastuurka soo hadal qaaday maxaad ku fasiri kartaa? mushkilad ma walaale waxa weeye wixii dabcan dastuurka Puntland waa qoraya dastuurka federaalkana uu qoraya inta in loo baahan yahay in la wada shaqeeyo oo cid hadda gaar talada dalka u muruqsan ka tahay ma ay jirto amase waxa weeye waa nidaamka federaalka waa wada tashi waa wada shaqayn waa mas'uuliyadda oo la qaybsado waxaasoo dhan baa loo baahan in la fahmo wixii dawladda federaalka marka annaga naga xiran aniga dawladda federaalka ka xaalayna. Dr. Cabdiweli dabcan Imaaraadka ayaad joogtaa xiisadina way jirtaa maadaama aad tahay mas'uul Soomaaliyeed ma kala hadashay bal sidii loo dibcin lahaa xiisadda u dhaxaysa Imaaraadka iyo Soomaalida oo xiriirkana caadi loogu soo celin lahaa haddii aad kala hadashay maxaad kala kulantay? xiriirkan inuu xumaado oo meel xun gaaro iyana ma rabaan dawladdeennuna ma rabto kolley waxa weeye arrimo farsamo baa loo baahan yahay in laga heshiiyo laakiin u malaynayo laba dhinacba in ay rabaan xiriirku inuu xumaado meel xun gaaro. Imaaraadku hadda sida ay sheegeen Soomaaliya dhinaca Muqdisho tababaradii way joojiyeen way ka baxeen Soomaaliya bal adinka Puntland ahaan maxay idinka damacsan yihiin maxaase haatan aad rajaynaysaa in howlihii halkaasi ka wadaan ay sii socdaan? waxyaabaha dadka shacbiga Soomaaliyeed qulubtooda taabanaya niyadoodana inaan lagu degdeginin waxyaabaha anagu talooyinka aan ka bixinay ay kamid ahayd dabcan wixii kale oo musaacidaha oo Soomaaliya oo dhan ay u geysan kareen inay u geystaan aanan lagu degdegin go'aamada qaarkood tan Puntland markaan usoo laabto dabcan waxyaabaha aan kala hadlayay ay kamid ahayd waan rajaynayaa in tababarada ay wadeen ay sida u wadaan wixii kale oo horumarin dhaqaale iyo mid ijtimaaciyaba social ay wadeen ay hore usii wadaan insha Allah. ugu dambeyntii adigoo aad iyo aad u mahadsan dabcan si dadaalka xagga diblomaasiyadda iyo wanaagga xiriirka lagu soo celinayo loo mideeyo markii aad safarka aad intaadan usoo bixin miska warqabteen dawladda federaalka oo wax tala wadaaga ma yeelateen? dib ma laha dawladda federaalka ahi dawladdeedu weeye laakiin safarkan wuxuu ahaa mid aniga igu kaasa marka insha allahu
waana wixii wanaagana waa ka wada shaqeynaa aad baan wada shaqeyn doona insha allah. kaasi waxau ahaa doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland oo isagoo ku sugan magaalada abudabi ee dalka stoga imaaraadka carabta qadka taleefonka iigu warramayey goorsii horeysay. waa hagaag dhinaca facebookana qodobkaasi dadka iyagu dhegaystayaasha ah ee ra'yigooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid a cabdirashiid muuse ardaale oo jooga hargeysa waxa uu leeyahay waxba soo kordhin mayso tallaabada uu madaxweyne gaas ku tegay imaaraadka oo waxay abuuraysaa buuri khilaaf ku yimaada puntland iyo dowladda dhexe. cabdirashiid maxamed cumar oo jooga boorame ayaa fikirkaasi ka duwan qaba waxaanu leeyahay waan soo dhoweynayaa booqashada madaxweynaha puntland uu ku tegey imaaraadka waxayna ila tahay buuri in taasi ay soo afjari doonto khilaafka imaaraadka iyo soomaaliya dhanka kalena la soo geli doono heshiisyo maamulka u gaara ayna shacabkiisuna soo dhoweynayaan. kuwaasina waxay ahaayeen dhegaystayaasha dhinaca facebook halkaad naga dhegaysanaysaanna waa london. ka dhegaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. markana magaalada hargeysa oo maanta gelinkii hore maxkamade ay 5 sano xariga ku xukuntay boqor cismaan aw maxamuud buurmadow. mardhow waxaad maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland oo joogay maxkamadii xukunkaasi riday oo ku ritay boqorka. marka hore wariyaha BBC-da magaalada hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa waxa uu ka warramaya eedihii boqorka loo haystay iyo xukunkiisa. sida uu ii xaqiijiyey xeeryaalaha guud ee Somaliland Xasan Maxamed Aadan waxa uu sheegay in maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Hargeysa saaka ay xukun ku riday boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow. xeeryaalaha wuxuu ii sheegay oo cadeeyay in boqorka 5 sano lagu xukumay 5 sanana dambiye sida uu sheegay ay ku soo oogeen xeerlaalinta oo ay kamid tahay in boqor Buurmadow uu ka jeediyay hadallo dhaawac ku sidoo hadalka dhigay madaxbanaanida Somaliland 15 bisha Abriil meesha la yiraahdo Puntland uu ka jeediyay hadalladaasi oo xaflad madax dhaqameed ahayd oo lagu caleema saarayay beeldaajiye deegaankaasi in hadalladaasi waxa uu ku sheegay in ay ahaayeen in boqorku uu sheegay in ciidamada loo baahan yahay in la kala qaado iyadoo uu ciidamada Somaliland ay xuduudoodii ay ku sugan yihiin taasina dhaawac ay ku tahay meel kaga dhacay ciidamada Somaliland. waxa kale uu sheegay in boqorka lagu helay in sidoo hadalka u dhigay xeerlaaliyuhu in uu ka been abuuray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo markii uu ka hadlayay munaasabada dhaqan uu sheegay in uu madaxweynaha kaga wakiil yahay in halkan inuu yimaado iyo madax dhaqameedka taasiiraha aanay jirin. waxa kaloo sheegay oo 5 sano loo cuskaday oo maxkamadda ay cuskatay yiri in intii maanta ay socotay maxkamaddu waa sidoo hadalka u dhigay xeerlaaliyuhu in boqorku uu aflagaadeeyay oo xaqiray maxkamadda isagoo maxkamadda gudoomiyaheeda xukumayay ku yiri sheeg in xukunka lagu soo dhiibay meeshan cadaaladnimo taale. laakiin dhinaca kalena markaad eegto in yar ka hor 12 iyo barkii baan boqor Buurmadow aan la xiriiray oo aan wada hadalnay wuxuuna uu sheegay in procedure-kii uu socdo maanta kaliya uu ay tahay markii maxkamadda ugu horeysay uu tagay isagoo oo markii hore la xiray 19 bishan Abriil dambi lagu siiyay 22 bisha oo markaasi dacwadiisa la diyaarinayay markaasi wuxuu la marhaantaasina qaran qabsan doono marka arrimuhu sidaasi ay u dhaceen. wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Axmed Saciid Cige ayuu ahaa. haddaba waxaan qadka taleefonka ee magaalada Hargeysa aan ku wareysanay xildhibaan Ibraahim Caraale Ruush oo isagu damiintay boqor Buurmadow. maanta markii la xukumay waxa uu joogay maxkamadda. Cabdinuur ayaa wareystay oo weydiiyey sidii ay maanta u dhaceen. wiil ka hor baa la xidhay aniga damiintay shalay baa la ila soo hadlay wax la yidhi maxkamadda waa la idinka baahan yahay aniga